السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعالي المهد على أبو بكر وإديسو دادهينايو برنامجك إسكول نيوز أما أخبارتا إسكولك قيبتي سلابات فضلا ولا ليال برنامج كان آد حميد وسيا waxaan maanta idinla wadaagayaa dhibaatada jirto laba dhibaato oo aad u ballaaran ayaa jirto anigoo ka sal qaadanayo mahmahada Soomaalida ee ahayd qofkii waranka isha iyo salka uga taagnaa kee muhiim ah in laga horbixiyo walaal ishana waa ka dhaawacanahay maxaa yeelay diinteeni ayaa qatar ku jirta oo ilmaheeni ubadkeeni diintii si fiican u yaqaan hadii u yaqaan kuma amal falan talabaad caruurteeni dhaqankii ayaa ka dhumay af Soomaaligi iyo culture-kii iyo wixii oo dhan ayaa ka baaba'san tan saddexaad dantoodii ayaa ka dhuntay oo resultigii markay maadaama diintii iyo dhaqankii iyo dadnimadii ay dhaabaxaday caruurtii identity wax liyaada ayaa ka dhumay kadib shaqo la'aan ayay noqdeen ama xamaali ayay ka buuxsameen meeshii aan ka fiirinay meel weyn han weyn aan ka lahayn marka ishi maadaama taasi ay tahay sidee marka loo xalin karaa waxa loo xalin karaa in salka waranka noogu taagan kuwii hore aan iska bixino maxaa yeelay qofka dhaawac isha ka ah wuxuu u baahan yahay in la jiifiyo si looga bixiyo waranka marka si looga bixiyo waa in salka waranka ugu taagan laga bixiyo salka waranka ugu taagan waxa weeyaan waa in waxaan u baahanahay xasilooni qoyska ayaa naga wareeray familka ayaa naga wareeray caruurtii dhaqan xumo iyo muxuu ahay iyo deganaansho la'aan shalay iskuulka aad ayaan uga walwalay markaan joogay maadaama anigu iskuulkii aan joogo oo aan arkayo wax dhacayo sababta waxay ahayd iskuul aad u weyn oo anaga aan ka nahay minority ayaan shalay waxaan ka noqonay majority maxaa yeelay markii ardayda galaasminka kala aadeen ayaa ardayda Soomaalida qaar ka mid ah tiro badan ay hoolka iskugu soo aruureen markaas buuq iyo sawaxan ay abuurayaan aad bayaan uga walwalay macallin ahaan iyo Soomaali ahaan iyo muslim ahaanba marka labadaas dhibaato oo jirto walaal darteeda maxaan qabanaa marka waxaan soo jeedinayaa halkan oo aan doonayo inuu noqdo hal aad u ballaaran Soomaalida meel kasta ay joogtana u gaaro insha Allah waxaan rajeynayaa xataa in adduunyada kale inuu gaaro waxaan ugu magac daray 5 daqiiqo macallin waalid kasto inuu 5 daqiiqo macallin noqdo 5 daqiiqo bas kamana badina kamana yareynaya adiga ka badi doonta dabcan markii dambe marka jeclaato laakiin 5 daqiiqo aan ku bilaawno 5 daqiiqo maxay baranayaan marka maxaad baraysaa adiga saddex shay baa baraysaa saddexdaba da ay ka bilaabaan tan koowaad diinta ayaan baraynaa aqoonta ayaan ka dhisaynaa ilaahay ayaan ka dhisaynaa inay bartaan waxaan dhisaynaa rasuulka inay bartaan sallallahu alayhi wasallam waxaan baraynaa inay bartaano asxaabti waxaan baraynaa inay bartaan fiqh iyo ahkaamta islaamka waa tan koowaad waa diinti tan labaad oo aan baraynaa waxa weeyaan dadka iyo dalki si ay u noqdaan ubad waxtar leh waa inay noqdaan ay bartaan qofka ay yihiin iswagaadaan ardaydu waa wareersan yihiin Soomaalida ay dhalinyaradeen gurigii waa wareersan yahay qurbihii dadkii ajaanibta waxay leeyihiin Soomaali baa tihiin muslim baa tihiin markii qurbihi markaan tagno dalka hooyo ajaanib baa tihiin diaspora baa tihiin aroortii wareer baa ku dhacay si aan taas uga xalino waa inaan ummadeena aan barnaa ilmaheena luqadda Soomaaliga hal xaraf bar maalin kasta hal xaraf Soomaalida waxay ku mamahdaa waag bariye iyo waaw quraan كيبا بدل طبعا واجب ريايا بدل maxay la xarafka quraanka hadda maalin kasta xaraf ka baratid waa dhamaanaya marka luqadda Soomaaliga ha ka fikirin inaad hal mar wax weyn barto maalin kasta laba eray bar ka bilow dadka ayeeyada iyo familka bar dadka caruurta bar macallin laba shay ma shaqo marka waa dadkii iyo diintii tan saddexaad oo baris waxa weeyaan danta qofka dantiisu waa inuu ka sayaa danta maxaa ugu horeyso inuu ardayga wax fiican barto markuu wax fiican barto kadib shaqo fiican ayuu helayaa mustaqbal fiican ayuu helayaa waxaa jiro walaalayaal laba shay oo luqadda wadamada heer galbeedka aad loogu kacsan yahay mid waxa loo yaqaanaa EQ midna waxa loo yaqaanaa IQ ga oo dambe hadda aan xusay wuxuu xoog saaraa caruurta maskaxdooda iyo aqligooda sidii caruurtan ay mathka ugu fiican yihiin science-ka sidii ugu fiican yihiin waxyaabaha practical-ka ah EQ-ga waa waxyaabaha emotional-ka ah qofka hadii uu barto qofka kan soo ula tacaamulo inuu run sheego inuu balanta ilaaliyo inuu dadka dhageysto markuu hadlayo in la ixtiraamo in la sharfo actually waxaas ay ku hadlayaan diinteena ku jirtaa rasuulkeen sallallahu alayhi wasallam wax badan oo ka hadlay wax laga taga male diinteena
مسقوش مركي اللي قرأ لقى هذي راشنك سيلو عنا لقى هذي مركي اللي ديفنا سيل دعاء الأقصى لقى هذي كل بيدك وكل بيمينك وكل مما يليك أنت صدق عروتنا برنامج وضع هرمون وين ينقارينا ولا ليال وانكو علينا يا حلقة ووين هي لكن حاليا أي أدين كان 5 دقيقة معلم والد كستو إنه 5 دقيقة معلم نقول وقتك هو حبان أداة تقاني الصباح دي كديقو مركو واجب بريو أنت أسكول كل آدم وعرورته إنتان بوس أجرين علاش أبوحنا بحس كل كآدة بس كيو ديك تجين كهر 5 دقيقة لفليس عرورته فضلا ما حد بريسا وانكو علينا يا 6 شيء عرورته واحد بريسا دينتو ده ودأه wax baraysaa dalkooda ay baraysaa oo ku jirto dadkii iyo dhaqankii iyo luqadda Soomaaliga wixii oo dhan waxaad baraysaa tan saddexaad dantooda inay caruurta noqdaan caruur mustaqbal fiican leh ka badbaada xabsi ka badbaada inay wax dilaan ka badbaada in ayaga la dilo ka badbaada daroogada ka badbaada gaangiska ka badbaado shaqo xumo waxaan rajaynaynaa inay noqdaan caruur fiican mustaqbal fiican leh wax noo taro waxay ka bilaabanaysaa macalinka koowaad oo adiga ah fadlan ma lagu weydiinayo inaad macallin weyn noqoto dartan مستقبل كاميرات جاري دون تدو إلى هيدو لكن هذا وحنكون بلعبنا 5 دقيقة معنا نقطة هذه كجد جيا ولا جان حدان أنت لابد أن قادم فضلا وأرنا قصارى العيش لما بدنا سوا معلو حبسيد كجرو لما بدنا سوا معلو بدون كيس استكسن آد بينو مرجليسة كم فرح سنين شلاي وحكوا رأسن إن هذا ما أنت لابد أن قادم وفلال أو مسلم أو معلنا وحص عد الله سعدا يعني فضلا أن سيدي سنو ولا sida uu dhaqsiyaha badan barnaamijkan ku bilaw insha Allah taala markaad barnaamijkan daawatid sida uu dhaqsiyaha badan ku bilaw aniga dhinacayga marka 5 daqiiqo macallina طبعا ma waalid kasto aqoon badan aqoontan uma laha waxaan idin soo diyaarinaynaa aniga iyo culimada Soomaalida iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed iyo dadka dhaqanka iyo luqadda yaqaan inaan 10 idin diyaarin oo ilmaha u sii bartaan 5 daqiiqo kow maar isbuuc kasto waxaan idin soo gudbinaynaa 10 yar oo diinta ku saabsan oo ilmaha sii bartaan 10 yar oo ku saabsan dhaqanka ku saabsan iyo Soomaaliga ay sii bartaan 10 yar oo ku saabsan danta xisaabta iyo waxyaabaha la halmaalo oo ilmaha isa u sii bari kartaan okay barnaamijkan muhiim weeyaan waa aragtaan sidee u qabanaysaan marka kow waa inaad raadisaan waqtiga ugu fiican ee familkii wada joogaan xilliga ugu fiican aabaha iyo hooyada ama qofkii familka markaas reerka ugu weyn uu joogo iyo caruurta ay wada joogaan haddii tahay habeenkii sameeya haddii tahay subaxdii sameeya waa kooda hore labo meesha ugu habboon ku sameeya marba meel yaa lagu sameynin mar yaa jikada lagu sameynin mar yaa fadhiga lagu sameynin mar yaa jiifka lagu sameynin ee meel hal diyaarsado wanaagsan ee wax lagu qabto halkaas meel caruurta markasto ugu akhri ugu sheeg 5 daqiiqo hal ugu wado إن شاء الله تعالى هيدا كبدل دونت وأنا خير بت شرمة لكن 5 دقيقة لقمة عاجزة ولا ليال برنامج كساور تم أدمه مهمية إن شاء الله تعالى وحن كلامتو إذا كرت جينيا إن هذه يعني فيشن وحدي لا فيشن كهو عرفتي ده قوسك هو organization ده كان أوير وفي ملك ما دام في ملك organization يعني وإنه في ملك يشاء هم ميشن وإنه يشاء قف كسته هالكود معسية فيشنك ugu weyn damacsantiin waa inuu noqdo janno maxay adduunyada waa ku meel gaar waa dhimanaynaa sidaan janno ku galnaa waxa waa in diintii baranaa marka hadaan diintii kooda hor maadaama ahmiyadda aan si diinta u jeedaan saddexda daabay ku bilaabanaysaa ka diintaas waxay noo geynaysaa adduunyada inaan ku horumarno aakhirana ilaahay na raali naga noqo jannada weyn aan ku gaarno fadlan aan ku dadaalna arrinkaas vishinkana aan ku dadaalno saddexdan aan ku dadaalno 5 daqiiqo oo macalinka insha Allah taala barnaamijkaas waa inuu noqdaa qoys kasta oo Soomaali iyo guri kasta oo Soomaali inuu galo ayaan rajaynaynaa hadduu ilaahay ma fadlan intaas ayaan idin ka rajaynaynaa fadlan hala sameeyo sida uu laqsiya badan hala sameeyo intaas shalay lahayn horumar aan gaarno adduun iyo aakhiraan ku liibaano jannatul firdaws hana balan hana noqoto adduunkana dadka ugu sareeya ee ugu horumarsan ee ugu aqalga badan ee taqaatiirta injineerada loo soo raadsaday ilaahay hanaga dhigo aad iyo aad aan u mahadsantahay halkan ka salaamayaa walaalkay Feero telefishinka Soomaali Register meediina aad ay u mahadsan yihiin barnaamijkan sidii u soo daadiyeen iyo sidii kugu soo gudbiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Somali Rochester Media